baraha bulshada maanta waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee lagu gaaro bulshada laguna kasbado abaalmarin iyo ciqaab isbarbar socda. Hal fariin oo aad dirto waxay markiiba gaari kartaa kumanaan kun, mararka qaar malaayiin qof. Ku darso oo fariintaasi ama boostigaasi mar haddii uu bulshada gaaro waa falaar fakatay oo inta badan maamulkeeda waa uu kaa wareegay. Haddii uu wax wanaagsan yahay, khayr ayaa kaaga sugnaan doona insha Allah. Haddiise uu xumaan yahay, xaalkeedu ma sahlana. Hadday sidaas tahay, miyaysan ahayn inaan aad uga fiirsano waxa aan ku gudbinayno baraha bulshada? Aan isla egno xadiiskan oo uu Abi Hurayra Allah ka raali noqday ka wariyay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam, kaas oo micnihiisu ahaa in adoonku uu ku hadlayo kelimad ama hadalkaas oo Allah subxaanahu wa ta'ala raali gelinaya, isaga oo aan war u hayn oo aan islahayn ajir iyo darajaad ayaad ku heli doontaa, laakiin Allah subxaanahu wa ta'ala uu maalinta qiyaamo ku abaalmarin doono darajaad. Halka dhinaca kale uu adoonku ku hadlayo isla kelimadaas oo Allah subxaanahu wa ta'ala caragelinaysa, isaga oo aan war u hayn isla markaana aan islahayn dambi iyo ciqaab ayaa kaaga sugnaan doona hadalkan. Laakiin Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri yahwi biha fi jahannam wal billah. Kelimadaas Allah ka caraysiisay u dhahay darteed jahannama ayuu ku hooban doonaa. Allah naga koriye. Boostiyada aan dhigano ciwaanadeena kala duwan ee baraha bulshada waxaa ka faa'iidi kara oo wadada wanaagsan ku hagi kara dad badan, ama dhinaca kale waxay wadada ka weecin karaan dad kale oo badan. Haddaba si waxa aan ku soo gudbinayno baraha bulshada ay u noqdaan wax faa'iido leh, Allah subxaanahu wa ta'ala uu raali ka yahay, waa in waxaasi aan ku fiirino muraayadaha diinteena Islaamka. Waxaana muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa 3 qodob oo ay tahay inaan raacno si aan uga badbaadno saameynta xun ee baraha bulshada. Ee ku soo dhawaada mawduuceena maanta. soo dhawaada mar kale. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. koontada aad ku leedahay baraha bulshada tay rabtaba ha ahaatee u isticmaal inaad ku gudbiso wax wanaagsan oo dadka anfacaya kana faa'iideysan karaan. taa beddelkeeda ha u isticmaalin inaad ku soo gudbiso xumaanta noocyadeeda kala duwan, taas oo runtii aadan waxba ka faa'iideyn adduun iyo aakhiraba. in aad dembi ka hesho maahane. waxaa runtii wax laga xumaada ah in inta badan dhalinteenna maanta ay baraha bulshada ku joogaan kuna soo gudbiyaan xumaan noocyadeeda kala duwan, iyaga oo ka raadinaya caanimo iyo magac aana jirin. haddii aad u fiirsato gabdhaheenna, xijaabkii iyo asturnaantii waa ay ka tageen. heesaha waxa ay noqdeen wax caadi ah oo waxaad arkaysaa in heystii soo baxdaba ay dhalinta iska soo duubaan. walaalaha arrimahan samaynayo, ma ilowdin in xumaanta aad samaynaysaan ay dhaxal xun idin noqon doonto, ileen waan wada dhimanaynaaye. ma ilowdeen in dhammaanteen aan Allah subxaanahu wa ta'ala hortegi doono. walaal, haddii aad hore u samaysay waxa aan ka hadlayo, amaba aad ku fikirayso inaad hadda samayso, mar kale ka fikir inta aadan ku dhaqaaqin. inta aadan ku faafin muuqaalkaas ama boostikaas bartaada bulshada, ka fikir oo mar kale ka fikir. sidaan hore u soo sheegnay, mar haddii aad dirto waxaa gacantaada ka baxaya kontaroolka boostigaas. xitaa haddii aad isku daydo inaad diliid garayso, waxaa macquul ah in uu dad badan gaaro boostigaas ka hor inta aadan diliidin. sidaas darteed ha degdegin, aadna uga fikir inta aadan bulshada la wadaagin. waxaan dhammaanteen yaqiinsannahay in aan mar un dhiman doono. haddaba adiga oo caqligaaga soo jeedo waxaad isweydiisaa, marka aan dhinto dhaxal noocee ah ayaan adduunkan kaga tegi doonaa? ma waxaa lagugu soo xusuusan doonaa qaawnaan, heeso, anshax xumo iyo xumaan noocyadeeda kala duwan, mise waxaa lagugu soo xusuusan doonaa wanaag, asturnaan, ka hadlidda waxyaabaha ummadda faa'iidada u leh iyo wixii la mid ah? labada dhinacba wixii aad maanta bulshada u soo gudbiso ayaa kuu noqon doona dhaxal laguguna soo xusuusan doonaa. inta uu qof arkayana boostiyadaada, ama Alle subxaanahu wa ta'ala waa uu ka abaalmarin doonaa, ajir ayuunu kaaga qori doonaa, ama dhinaca kale uu kugu ciqaabi doonaa. Allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu suuratu Yaasiin aayadda 12 ku leeyahay, waxaanu soo noolaynaynaa dadka dhintay, wixii ay horumarsadeen iyo raadkoodiiba waan u qoraynaa. marka walaalayaal, maanta oo aan nool nahay ayaan fursad u haysannaa inaan wanaajinno waxa uu Allah subxaanahu wa ta'ala inoo qorayo ee aan isdaba qabanno. ugu dambayn, waxaan nafteedii itaadaba kula dardaarmayaa inaan ka digtoonaano shabaqyada xumaanta ah ee daadsan baraha bulshada, ugana faa'iidaysanno dhanka wanaagsan, sidoo kalena bulshada uga faa'iidayno waxa anfacaya oo uu Allah subxaanahu wa ta'ala raali ka yahay. mawduuceena maanta intaas ayuu ku egyahay. inta aan ku kulmi doono mawduuceena xiga, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.